السلام عليكم أصحاب خالقة وسلامتي مركا كواد مركا لبعض لنا إنان ودسوجين حكت ويلكا كل هذا البضن ومبه ندين ويلكا عن الله حريرين دونا إن شاء الله تعالى ويلكا حال الله محمد مركا إن شاء الله بل ويلكا هو عدونا. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام. walaalkii asfaq diid waa qof kula hadlaayo kameraan hor fadhinaa arrinkii jiray aan ka wada hadalnay ayaan rabaa inaad bulshada Soomaaliyeed ugu soo celisid kulli aniga si fiican ay ugu sharaxday sidoo kale bulshada Soomaaliyeed waxa u baahanahay inaad sidii si la mid ah maaragtay aad ugu sharaxdid. Okay. Ma bilaabi karaa? waa bilaabi kartaa. Okay. Filmkan horta film aad isku naqaano oo magacyada saddexan aan aqaano intii qoys ay ka koobiyiin ay aqaano waxa waaye filmkan xitaa dadka deriska iyaga la ah inay isku ka yaqaanin in ay qof iyaga caawi jiray way marka hadda waxa sheeko oo aan la yaabay oo hadda abira bulshada ay ordayso oo ilaa hadda aan la fajacsanahay ayaa dhagteeda ku soo dhacday deegana aan ku arkay way dadkii oo aniga eedeenayo oo markano xataa baraha bulshada dadka dhan anigana waxay u weydiinayaan maxaa dadka saas ugu gashay way dadkan dad aniga awal iidan sheegtay ahaayeen oo aan caawi jiray oo waxyaabo badan xataa reerkayga waxaan u qabanin waxay iyaga u baahan yihiin reerkayga ayaa iyaga sii jiray waa garta dad horta qof abaal gudana waa waxa waaye ma la arkin qof abaal galo waa la arkay Soomaalida sida ku maamahdo wax badan oo dadkan u qabtay oo aan meesha laga koobi karin waa jiraan oo hadda aniga waxa soo dhan waxaan u malay jiray wax sadaqa ii ah maanta ma jeclaan inaan ka sheekeeyo waxa iyaga oo qabtay fahmno waa garta marxaladana keentay inaan kaga sheekeeyo marka inay sida wax u jiraan sida dadka soo caawi jiray iyo arrimo badan in hadda aan meeshan dadka aan ka dhaadhicin maadaama si qaldan wax loogu soo sheegay way marka familka يعني حريرك إذن كده حي محوها يعني فملك يعني أقونت إذن كده حس فملك محوها فملك كو أقونت أنا كده حس وحواي جبرتها هرت نسكو كبرتي جبرتها فيسبوك أسكبرني محل واي رنت دوا مركا أنا فيسبوك أسكبرتين وارن واي جبرت فيسبوك أنا أسكبرنا رن هاي وحاجة مركا إسرائيلي إني مركا أي adi waxay u tiri maxaa lahaa reerkeeda iyo duruufaha haystay inay igaga sheekayso isla gabarta aan Facebook iska baranay way magaceed gabarta Facebook iska baranay waxaa lahaa Caasha Cali Cilmi waa gabar sheekhaal ah way sida sheegeen laakiin baad waa kaga sheekeynaa qofka hadlay way qofka hadlay yani qofka hadlay waxa la yiraahdaa Ismaan Cabdishakuur Warsame qofka hadlay yani maxaa ka wadaa qofka hadlay iyo la hadlay qofka qofka oo baraha bulshada hadalka soo gelshay oo inayso ma ahan gabartii waa iyada walaasheeda yani waxa la qofka baraha bulshada ka dhex oonay ee la wadwaday ma ahan qofkii ay wax idin ka dhaxayeen Caasho ma ahan waa gabar kale weeyaan miya ma ahan Caasho ma ahan waa gabar kale oo iyada la dhalatay oo ku hooyo ah oo aan aqaan iyada naftirkeeda wax badan aan ka soo caawiyo xataa guurkeeda ay soo guursatay xataa ka caawi jiray waa gartay taas waa arin marka waxaad leedahay gabadhan aniga wax nagala dhaxeeyay oo isbaranay ee familka darteed aan isku baranay maba ahayn gabadha ooynaysay ee waa gabar kale oo la dhalatay ayada waa sida magaceed taas magaceed ayadan waxaa la Ismaan Cabdishakuur Warsame way ku hooyo gabarta Caashada la dhahay waa garta waxaan u maleynaa xataa codadkaas dad badan oo adi deriskooda hadday dhageysteen inay galagala karaan qofku yahay xataa okay dadka deriskooda qof ma jira aad raadin kartid hadhowta lacala oo kuu kala saari kara codkaas ilaan Soomaalidii hal dhigay wax ka maqlaayaan saan u jeedo gabadhii ayay wada aaminsan yihiin oo hintii wada maqleen
ma jiraa qofa isleedahay oohintaas uu kala saari karaa adi ahaan ma jiraa adi waa kala saarta saa ii sheegtay oo qofkan caashada si fiican isku taqaaneen codkeeda si fiican u taqaanaa hore ay ugu sheegtay qofka oonayana waxaa igu dhaaratay inayna caasho ahayn oo ay tahay gabadha kale ha mida ku sheegaa ani horta codad badan oo dadkan ilaa muddo isla sheekaysan jirnay codad badan ay soo duubeen iyagoo isku dhegan oo isla hadlayo oo ani madaxii isku dhegan waxyaabo badan hadda dadka aan maqashiyo waxa laga yaabaa inay iyagaba kala saari karaan waa garta oo macnaha gabartan hadda sidaan usoo oynayso oo gabarta la dhalatay xataa qabiilka ay sheeganaysa inaysan qabiilkaas ahayn laakiin gabarta kaleta iska matalaysa qabiilkeeda ay sheeganaysaa waay hooyadoodna magaceeda haddaa sheegan waxaa looda dhahaa maxaa lahaa faisa cabdi taabit okay marka waxaan rabaa inaa bal gabadha qaabkay wax u sheegaysa ee ahaa inaa barfuun usoo dhiibtay inaa yacni aada bal qeybtaas bal igala hadal bal wax yar haddana midaas kaaga sheegaa horta ko ani wax barfuun la yidhahdo maana dhiibin weligeena wax iyada ani gacanteeda inaa inta ka qaaday ee aan u geeyey mase qof aniga i yaqaano oo iyada aan aqoonin ee u geeyana ma jirto barfuun waxa la dhaho ma jirto oo qof adig ku yaqaano u geeyey ma jiraa tiri maba jiraanba barfuun iyo waxyaabahaas waa wax ay iyaga iska matalanayaan maadaama gabarta onisba aysan ahayn gabarta ana ashkaansiga naga dhexeeya ooba hadalka naga dhexeeya waay okay halkaas aan kusoo celiye gabadha kale oo facebooka iska barateen shukaansi idinka dhexeey miya yani waa shukaansata waa la sheekaysta gabartay waay middaa facebook iska barateen ha caasho marka ko waa ishukaansanay weliba ina xasla waa u sheegay oo marka dambena waxaa dhahay xasla ahay oo dhibaato macnaha ani ma awoodi kari qofkaa rabtid waa iska sii shukaansan kartaa oo dhib malaha marka arrintaasna arrin kale waay haddaa kasii sheekeeyo waxaa waaye waqti kale qaadanay waay waa gartay igu soco marka midan barfuunka iyo waxaan lasoo dhiibay ah ani horta wax barfuun la yirahdo mau dhiibin gabartan ismahaan la dhahayo meesha iska oysiinayso waxaa waaye qof horta abaal weyn u gala ahay hadday iyada aaminsan tahay bini-aadanna waxaa waaye qofka hadba waxaa waaye maxaa lahaa abaal ku galay inaa abaalkiisa u gudi karto ama aadan ka gordaroon karin laakiin iyada oo ninka hadda isqabaan oo intaysan isguursan shukaansiga ka wada dhexey jiray waxbaa dhexmaray waxaa weliba isla gabarta caashada la dhahayo waxay igu sheegtay in gabartii xoogaa uur ay leedahay oo markana uurka la qarqarinayo oo sidaas darteed wiilkii hadda iyada qabo ay lagu meheriyo oo keliya mafahmna waxba aroos iyo waxba loo dhigin oo ay murugaysan tahay dhibaataysan tahay okay taa ma rabo hadda inaad sii dhexgalno qeybtaas ma aragtay waxa u qabatay gabadha ismahaan iyo arinteedaas iyo waxaas inaan saas usii furno ma rabo waxaa rabaa keliya inaan maaragtay xooga saarno arrintan caasho iyo oohintan iyo waxaan inaan xooga saarno marka halkaa bal ku soco qeybtaas yani qeybtan kale naga soo xir okay macnaha barfuunka haddaa ka hadlo macnaha barfuunka qofka sheegayo waa qof macnaha rabo qof inuu markan eedeeyo oo beenka abuurto oo weligiis qof aan waxba barfuun u dirin oo iska dira waxaan diray oo keliya iPhone 12 Pro iyo Samsung oo hooyadeed iyo ismahaanta oynayso oo waxba naga dhexayn laakiin gabarta la dhalatay aan u diray oo weliba waxaan ugu dirana iyada waxay ugu tiri DHL soo dhig weliba codad badan oo markan DHL-ka inuu tagta dhayso ninkayga igu soo dhiib maxaa la dhahaa asaa bajaajle asaa aqoonsile iyo waxaas ana waxaa dhahay waxba DHL ma soo dhigi kari qof Sweden ku jooga hadduu jiro keenso si aan iPhone-kaaga kugu dhiibo maxaa ugu dhiibays markaa sababta ugu dhiibays maxay taleefanka iyo waxaan horta sababta waxay tahay maxaa lahaa ani weligii horta qof meel wax tagay ee diray ma ihi waay haddana saasay tahayna iPhone 12 iyo macnaha shay weyn aa la dhiibaa laakiin markii shaygan la geliyay backet waa mid iska yar oo iPhone-ka 12-ka ah sax
iyo hal Samsung oo iyaga aan ugu daray oo dhahay maxaa lahaa maamadana ha iska isticmaasho maadaama iyada aysan telefoon haysan iyadana hooyadooda au dhiibtay yani telefoonka hooyadeeda Samsung aan ugu daray laakiin hadda hooyadeed ma isticmaashay ilmaha iyaga la dhashay PUBG ku ciyaaraan PUBG ku dheelaan okay waxaan yani su-aashan ku weydiiyaa waxay tahay adiga sababta maxay tahay aad telefoonkan iyo waxaan u gadaysay oo ugu dhiibaysay sababta maxaa waaye sababta waxay tahay anagoo wada hadlayno oo markano maxaa lahaa caashada ismahaanta iyo gabar kale oo la dhahay jiray haajiro iyagan wax isku yihiin waxaa isku qabsadeen maxaa lahaa iPhone ma heli kartid adiga macnaa anna waxaan dhahay wax kasta ilaahay xaggiisa ka qoran yihiin inay heshana waa laga yaabaa maxaa saas ugu leedihiin aday shay waxaa waaye isku caamireen si aan wax lagaga qaato ma fahmino adigina waa dhiibtay marka camirashadii aad boos qaadatay waa dhiibtay waa awoodaa marka waxaana maal adduunya waa la heli karaa waay saas darteed anna waxaa dhaha marka anaa ku siinaya dheh anaa ku siinaadii marka waxaa balana iga qaaday ee telefoonka isii ay ku tiri marka dambana ada balan bakaa qaaday u dhaaratay da balan kaa qaaday ee telefoonka ku siinaya waa kusoo diraa hadhe kabacdina markaasna wiilka oo hadda iyada curudkeeda ee uur la lahayd hooyadeeda waxay ugu tiri gabarta uur ay leedahay caloosha kasoo ridin waxa u ballan qaada iskaga soo dir saas darteed anigana telefoonkan ugu gaday marka okay waaye marka arrintan kale waxaan kaloo telefoonka ka hadlaya oo dhan suncab iyo waxaan iyo rakaata iyo waxaasoo dhan waxaa kusoo koobaysaa oo leedahay yani qof kalaaba hadlayay ee waxaan wax jira maba ahaba yani ha wallahi oo billahi oo tallahi gabadha oynayso waxaa la dhahaa ismahaan cabdishakuur warsame waa naag hadda qabiilkeeda ma rabaa inaan sheego haddii macquul tahay waay waa naag Sacad Saciid habargedir ah oo weliba aabaheed degan yahay Horwa bajaajle uu yahay oo maxaa lahaa meesha baalada biraha bajaajada lagu sameeyo dukaan yar ku leh meeshaas waay laakiin gabarta oo iska matalaysa ay ku hooyo tahay isku hooyo weeyaan ha okay marka adigana yani qabiilka lagaa sheegayo mursada sabti waxaas waata macnaha aniga horta anama isku qarininba qof qiyaano la damacsan iyaga hadduu ahaa lahaa mase dhib u geysanayo horta ko anama waa isqarqari lahaa kaba soo qabo sax laakiin aan waxaan isku qarin oo isku bandhigay waxa waaye inaan iyaga ehel ahaan u arkay inaan dad ma arkin oo wanaagsan aan u arkay oo maasha allah oo aanan wax hadda maanta dhacaya aysan ka suurtagelin anatiga maskaxdeeda ma soo qaban ilaa hadda waa aaminsanaanaa ahata waxaan ay sheegayaan okay muuqaalka yar oo clipka ana sax taasoo usoo socday muuqaalka yar ee clipka ah ee gabdhaha qaawan saas loo wado oo sawirkaaga lagu keenayo muuqaalkaas waa usoo socday muuqaalkaas muxuu yahay okay muuqaalkaas clipka horta ko aniga Facebook video call iyada kala hadlay gabarta xashada la dhahayo aad duubtay sax video callka anoo kala hadlayo waxaa ka hadlayna maxaa lahaa telegramkan dadkan la soo gelinayo iyo waxyaabahaas markaas waxaa dhahay dad badan oo dad ceebeynayo iyo waxyaabahaas marka linkigii ii soo dirtay linkiga ana ku dhuftay sax marka waxaa ka wada hadlayseen telegramkii maya facebooka ka hadlaynay laakiin linkiga markaa ku dhufatay toos telegramka u geynaa okay marka facebookana waay iyo facebooka iyada ka hadlaynay soo marka telegramkii aan ku dhuftay telegramka marka aan ku dhuftay waa arkay markaas waxaa dhahay inaan videoga facebooka markana sharing inaan sameeyey sharingka iyada waxaa dhahday sharingka sameyso adiga kusoo baxaya aan arkay yacni linkiga kuusoo dirtay facebooka ka wada hadlayseen waxay ku dhahday shaashadaada ii sheer gare si aan u arko waxyaalaha kuusoo baxay ha sida kuusoo baxay aan arkay sidaas darteed ana sharing markaa ku dhuftay muuqaalada markaa kuwaan le miya aan dhahay haddaa xataa markan aan daawanay keliba inaan ku dhufta aa wada fiirsan lahaa mo waxaana fartaa saas ku bobootiyay isla markana waa kasoo laabtay halahaas irita kelibka inaga duubatay waxay ka dhigaan marka qof markan eedeysana oo soomaali weyn oo dhan hadda eedeysana xaggooda ka ahay ilan gabar oynayso soomaali oo dhan ma dhegeysan karto ana hadda ma dhegeysan lahayn maskaxdeedu waxa markaas isiinaya in laga gardaran yahay laakiin xaqiiqda wuxuu ilaaha og xaqiiqdaas dhabta qofka biniaadanka hadduu iimaan leeyahay
waxa waaye marka hore inuu isdejiyo oo dheela allahu aclam wax kasta ilaah xagiisa maamino uu ku ogyahay way maya xaaladdaa waxay kusoo aaday walaalkayow, xaaladdaa waxay kusoo aaday xaalad gabdhaha aada loo dhibaateeyay ayaa xaaladan kusoo aaday. marka waxaa rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo oo ah aqoonta aniga adi naga dhexayso, bal inaa ayadana wax ka dhahdid, bal aniga adi qaabkaa isku naqaano inaa ii sheegtid. horta ana naftirkii sheekada la yaabay ugu noqotay maxaa yeele asad faqdida is yaqaana markay dhahday waxaas dhahay saa camal sababto ana asad faqdida horta si aqoon oo baraha bulshadaas inuu fanaan yahay waa ka aqaanaa, inuu markano yahay maxaa lahaa comment camal oo YouTube iyo wax, laakiin aqoon oo ani asiga aqoon isla leena ma jirto. laakiin ana waxaa aqoon ku leeyahay oo keliya ina markii ay mar ayada ila hadlaysay oo dadka banooni isla dheelaynay fahmna dada banooni isla ciyaaraynay waa baxaynay guri oo waxaa tagnay marka wiil saaxiibkeena aan aadnay. so markaas waxaa malena marka videoga ka hadlay inay iska qiyaasatay asad faqdi. okay, horta aniga adi aqoonteena anna haddaan ka hadlo aqoon guud waa isku leenahay oo waa is aragnay, kubad waa isla ciyaarnay, laakiin aqoon aan guri ku wada tagno iyo aqoon aan yacni aan isla socsocono ama isla shaahayno ama asxaab isla nahay mayna jirin. laakiin aniga adi kubad waa isla ciyaarnay, korkaasna waa iska garanaynay, anigana korkaas waa ka aqaanay. maalintii magacaaga la sheegayay runtii ama kaaga ila noqotay yacni markii hore la dhahay wiil murursado ah, asxaab badan aan qiyaastay, halkaan aan ka wada salaama asxaab badan oo murursado aan qiyaastay. marka magacaaga laakiin aad baan u sugayay videoga markaan daawanayay, magacaaga markii la sheegay waan ku garan waayay ilaa iyo videogaaga aan meesha ka dhex arko, sawirkaaga aan meesha ka dhex arko aan kadib ku garto, kadibna aan kusoo raadiyay anoo weligay kusoo raadin, anoo weligay taleefonkaaga helin, anoo weligay taleefonkaala hadlin aan kusoo raadiyey kulana hadlay, arrintaana ku weydiiyey oo dhibaatadan maxay tahay ku dhahay. marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo walaalkayow, maadaama familka aasaas u caawisa aa sheegaysid oo ehelkao dhan aa istaqaaniin, horta arrinta inay yara dhan inay been u badan tahay way caddahay. sababta waxaa la lahaa wiilka waan qarinayay, maxaa la dhahay rakaatu igu haystay, familkayga waa ka qarinay, hooyaday waa ka qarinayay. adigana saa ii sheegaysid hooyadeed magaceedii aba saddexan aa garanaysaa, gabadhii magaceedo saddexan, walaasheed magaceedo saddexan, familkii oo dhan aa wada taqaanaa, taleefon inaa u dhiibtaa idin dhex martay, hooyadii inaa isla hadashaan idin dhex martay. marka adoo familka waxaas oo wanaaga u sameeyey, waxaas oo garab istaaga u sameeyey, maxaa kalifay in arrintan baraha bulshada laguu soo geliyo oo wiilkaas rakaatu igu haysta la dhaho oo buuqaas la galo? maxaa kalifay asleeda? horta waxaa kalifay haddii taasna ka sheekeeyo horta iyadana teed waqti kale qaadanaysa sababto ani ahaan horta ani ma aaminsanin in dadkan ani eeday doonaan isoo markano isoo daba kici doonaan. xataa mararka ugu dambeeya waxaa dhahay walaalayaalow kheyr badan intaa isoo markano isoo hadal qabanay oo markano wax idii qabtay caafiya waxba idiima haysto waxna iskuma qabsano macsalaamo sidii aan horta ani iska aaminsanay. weliba waxaan dhahay macnaha haddii wax markano ay jiraan xataa ani isa weydi lahayn saas wax jiraan macquul, laakiin qofkiiba maba ahba qofka oynayo. waay yani maxaa keenay yani maxaa arrintan kalifay? ma iscayseen familka ma isku dhacdeen? gabadhii miyaad isyaraha isku buuqdeen? okay ana ku sheegay waxa isku qabsan wax kale ma ahan. horta ani ahaan sida u caawi jiray oo markano qof shaqaysto oo markano oo saas ahaa jiray sidii ad waqtigii corona marka kasoo bilaabatay kis xoogaa ana marka shaqadii xoogaa waa iga istaagtay. waay shaqadii aa kaa joogsay oo qof hadda maanta oo caawi karana ma jirto, iyagana ma aaminsanayna maanta o dhan aan lacag u haayo camal ay aaminsanyiin oo aan caawinayo. marka haddii mar wax ma haya aan dhahno waxay u malaynayan in iyaga lagu diray maadaama xaafad oo dhan ay yaqaaniin in aan caawiyo. waa garta fahno soo dadka marka isla ismahaantaan naftirkeeda iyadoo ninkeeda jira hadda waqti xadirkan inta muuqaalkan in waxaan ay soo duumin ka hor waxay dhehaysa iPhone 13 isoo dir.
ismahaanta ku dhaysa iPhone 13 isoo ismahaanta naftirkeeda ismahaanta naftirkeeda waana qofka oonayo weeyaan qofka oonayo waay gabarta maxaa la caashada naftirkeeda waxay dhaysaa ilkaha ii xir anina lacag ma hayo ku dhax waxa aan haysto waqti xaadirkan oo adinkeedu ka caawi karo ma jiraan awal wax waa haystay waxna waa idin siinayay dadkaygana waxay u baahan yihiin والله إيه السنة وجهها قربحة تذكي كانوا وجهها قربحة يعني واحد فمن جاء وقبلنا وقبلنا استاس وافهم ها والله بالله ترى قف بالآدم هذا وحاول ولقى هذا قف بالآدم حاولنا نيد هذه القش واي لبعضها هذا اللي جي سنة درتين صح سو مركا هذا أرت كو إله كودي عد كاسنا وحاول أرت وصوش عبحايا واي oo meesha ilaa ka soo saaro oo ka soo baxi doona laakiin Soomaalida waxa dhihi lahaa walaalayaal wax hubsada inkaarta iyo maxaa lahaa nacalada agamaysin in adinkeedu ku soo noqota laga yaaba taas waa sax marka waxaan rabaa yaa isleedahay arrinkan uu soo maleegay oo yani yaa isleedahay maadaama dee qof wax uu safilinin wax aad filinin maadaama dusha hal mar hib lagaaga sii يا إسلام waxaa isleeyahay horta gabarta oynaysa Soomaaliyeed iyo maxaa lahaa gabarta muuqaalka ka codka u duubaysa xana la dhahayo xanadana subaxa soo wacda ana hurdaysan iyadoo dhehayso maxaa lahaa inaan ani dhiil garaysid inaan saas yeeshid maxaa ana mushakilada ma fahmin ana ma ku fahmin aan dhahay ka bacdina way dhimisay marka ana ma ku fahansinay aan dhahay ka bacdina cod ay soo duubtay كل هذا محل لها إن إلى ديل الجري سدواي ما هنا أذي عد كوس وضبط كل هذا إلى ديل الجري إلى ديل الجري إن معناها شكل هذا نوع سو جرتي إن واكس عمل إلى ديل الجري أصل الصبحي أساس دي سنة قلبتي ذو حركة مقال أونس قبرتي أو محلها إذا لسه مثلا أوكي عدكاس مناشر جري كرتامرك عدكاس يعني أو هذا ما هي ستا إلا سومالي وحربان عدين مفهمي سواء كان الله سومالي وهذا الإسكشاق يوحاس يوحى أمالنا وكو أذكتاي عدين تأمنا وح عدين ما هي صعب وها يا بعدك إيصد دبتوها يا إن وأنا كل شهر جري كرا ولي إصلاح النادي نفتر كذا بلاغ حتى إصار تمر ديد لهذا أما الدين لهذا إنا أنيق إلى دي الجريسيو إلى هذا شرعت كاك هبون مرها فيديو جاك حتى فيسبوك سوق لنا والله وبالله وتالله حتى فيسبوك سوق لنا ويش جاك ومدة أن تسينيا السويدن وكل دجانا هاي ناك دولة وشقي ساعة ما فهمت حدانا نحبسك وقصوه بسنين وأن برب الشكو كينين وأن بوليس السويدن فرتكاسر ناجم إيه. السلام عليكم. هذا إذا بنفتكر أنا وعوي جدا ده بلاغي بس كيسارتي. قرما وعد مركي أي إلى الجرا كتير كدبا ما مركي أي واحد صوشة صارت كدبا قرما. مركي واحد صوشة عسي هذا ولا لي براه بالشدة صارت إيسو جلس محاوى مسكين كان واحد كوها يسطر معيهين هذا مركي أساس ضحي أو قفك وين سنة وش اكتها ولي واحد ماركنا قرش أي بسوم مليجانا جبر بوساسة تكتي جبر برفول مريء جبر واحد صارنا هنا إذا بينا مسكح ناس كدم بس مركز اللي بفهمه بصوته أنا بوساسة كوكي مركي تري إلا قفك للنبأ عشان نسجل وحلو النبوي صح قبرت عدالة بمشي كمان بسميه نسب حتى مرة قف كان قدرين هاي قف قال إنه سكسوا وعلى يراد إن محلها ساس اللي يسميه إنه حد كان قطعه صح إذا وحي كسميه سفرك وحي تري أنا بوساسة جيو قبرت وحوالي بالقهرة اسمع سيدي دتك وحي كل هلا إن سجالي تمك أغسطس أو قدام بيسي حتى أنا دتك تسكره واي واقرت أغسطس سنة كان بش هذول أنت ستمانين بش أنا هذا كجرنا صح أصلها اللي سيم أصلها ها صح ولي حتى حاول الله ولا ليالو بلغنا كسار مع سلامه قبلها كنت مركي ومقالك وحنا أركو يا أوكي مركا أديك واحد تري هنان وعي مركا واحد صوشع صارت كذب عندن أيضا بلوغ صارت ها مركا وعي oo aan ku dhahay maxaa lahaa walaalay dibka ay geysatay maxaa waaye oo social media muuqaaladeeda oo soo dhigaysid hatta hadaad markano aad leedahay baana waxa caawina ma booliisku tagtaa adaa baana wax ugu haysatay sax
iyadana waxay ugu jawaabtay isug telefoonka oo blog dhab qofkii dhanaa oo inuu ku raadinayo iska dhigayay oo wiilkaas hal iisoo qabto wiilkaas inaa raadiyo waa dhahayay ayaa markaad wacday adiga blog ku saaray yani wallahi blog ay saartay wallahi cod kale weliba xataa isla familkaas markano dad ay wax isku yihiin xataa waa wacay mar waay anigana sidoo kale horta walaalkeyow aniga arrinkaaga markii koowaad aan gabadha dhageystay runtii dadkaas soomaaliyeed ee aaminaan ku jira an naftirkeyga laakiin markii liigu soo daray oo arrinkii ay gabadhii dhahday asday saaxiib yihiin oo ayakoo guri joogaan arkay horta adiga hadalka aad leedahay hadda ayaan aaminsanahay 100% sababtoo ah ma aamini lahayn waxaan ku aaminay aniga naftirkeyga been liiga sheegay oo liiga dhigay inaan guri isla joogno labadeena oo is aragnay laga yaabaa gabadha inay camera adoo duduuba yani saa ii sheegaysay kubadda isla ciyaaraynay iyo waxaas adoo duduuba iga dhex aragtay kadib isku dhufsatay in aniga adiga saaxiib nahay oo guri wada degannahay ama wada joogno ama saas oo kale aniga hadda intan ka hor waxaanba deganaaba Orburu halkaasaan yani ku noolaa muddo dheer aan ku noolaa Stockholm bishana igu horeysa saan jeclahay bishana aniga adi ismaana arkin hal mar kubad isku aragnay halkii mar laga yaabo in isku dhufsatay marka walaalkeeyo aniga 100% hadalka adiga leedahay ayaa aaminsanahay haddii aad ii soo dirtid maxaa la dhihi jiray hana codkeeda oo ay ku dhahayso ila dhiil gareena wayba kasii fiican tahay 100% oo ku aaminaya sababtan kugu aaminayna dee waan sheegayba waxaan kugu aaminaya walaalkeeyo oo arintaan oo dhan waxaan oo dhan qofkan oonay waxaas oo dhan inay been yihiin oo qof kale yihiin saa ii sheegays aan ku aaminaya anigii ayaaba li igu daray meesha oo la leeyahay asad ayaa arrinkan gurigiisa iyo waxaas iyo anigoon guri shaqo ku lahaynba ma fahanta marka walaalkay waxaan waa iska dhamaanaa insha Allah marka hadda Soomaalida hadda maxaad fariin ah walaalkay oo u fareysaa maxaad Soomaalida yani ugu dambeyn maxaa isleedahay horta ku ani alxamdulillah horta waxa waaye wax kasta horta wixii dhacay ku sanay ka weeyeen maqaadirta Ilaahay waa iska meeshidi dadkana dad aniga horta aan caawi jiro waaye wax oo ay sheegayaan waxa waaye qof bilaadan oo in lagu rakaatay xoolihiisa sidiisa ku sii baxaan oo kale ay rabaan hatta waa ku sii bixi lahayd dadka waa sii caawin laakiin ana waxba haysanin صح waxaan dhihi lahaa dado waxa aaminaysiin macnaha dad waxay sheegeen isku dhufsateen laakiin waxaan dhihi lahaa marka qof wax ku aragtaan ilaa soo hadiye xataa iska dhaha hadii dambi markaa idinka soo gaarin laakiin inkaartaan iska dhaafa caladan iska dhaafa wixii oo ilaahayna waxa waaye qofka qalad galana waxa waa soo daahir doona macnaha meel ma gaarayo leebno waaga si fiican أنا ضد Soomaaliyiin waxaan dhihi lahaa waa salaamantii aan qof kasta wax iga sheegana waa iga cafis oo hadda qof wax haysta ma jiraan reerkan awal ana caawi jiray oo dadka dhan diriskooda dhan oo wadi yaqaaneen ana iga caawi jiray so wax kale hadda aan ku darana ma hayo oo hadda aan ahayn insha Allah okay saahday ku sheegay misleedahay waa soo heli kartaa qof dariska kamida oo arintan beenin karo misleedahay waa soo heli kartaa وراadina hada qof diris kamid ah soo leeyahay laakiin muhiimada waxay tahay qof diriska kamid ah hada maanta social media la soo dhigo asiga laga yaabo inuu dhibaato u gaarsiiyo gabartan oo ismaan oo siinayso dad badan ay saaxiib la tahay oo labada dhinac ka kooban dawlad mise shabaab mise waxay tahay Allahu a'lam marmar waxa arkaysaa iyadoo baskool wadato mar waxa arkaysaa iyadoo qori wadato Soomaaliya dadka bil aadankan ayagana naftada in la heliga ma fiicno marka waxa adoo baskoolado taayado qori waxaas kula wadaagtay yani waa haysaa way la wadaagtay waxa soo dhan waa haya oo wali waxta waxay ugu sheegtay maxaa la beedin ala shabaab yahay dhowr mar la xiray waxyaabo badan oo ay sheegtay okay arimahaas inaad sii galno ma rabo okay waayahay waxa isleedahay waa iloosan tahay oo ku saabsan familka ama hanada ama maxaa la dhihi jiray ma jiraan ama aqoonta familka isku sii leedihiin waxyaalahaas waxa iloosan tahay oo aad ka tagaysid ma jiraan horta ana dadkaas ina caawi jiray horta dadka waa sheegay oo hadda waxa aan ka qariyay ma jiraan
wax hadda aan hilmaamsanahayna oo aan waqti xadirkan aan leeyahay waxaas aan u qabtay runtii aan laftirkeeda argagaxsan boorto waxyaabo badan oo aan dad caawo jirtay markay iska kaarnabaan ay markaan social media soo istaagaan adinaaba qalbigaa ka jabaysaa noloshaada dhanaa waxaa mugdiya dareemaysaa saaxiibo waxaa waaye xanuun waa baashan si fiican nabka aada u xanuun badayay beenta ama iga raali aada asxaabay kamerada iga yar buuxsantay memoriga marka hadalka uu noo soo soconaa wuxuu noo maraayay maxamedow nabka inuu aada u xanuun badan yahay halkaasuu noo maraayay walaalkayow marka maxaad ku daraysaa intaa walaal waxa kaloo hadda aan ku dari lahaa ma jiraan waxa waaye horta kow aniga horta waxaan ahay nin xaasla ah oo caruurna ay u joogto micnaheeda waxa waaye ani haddii hadda gabar aa shukaansada macquul maahan inaad xataa magaceeda social media kula wadaago so ani dadkaas sharaftooda waa ani sharafteyda laakiin maanta sharaf dhaca ay ugu sameeyeen sidaas darteed hadda waxaa ugu hadlaa waxa iyagana soo dhexmaray ay dhibaatada ay ugu geysanayaan social mediana aan u cadeynaya yani waxaad leedahay waxaan marnaba kamaad hadasheen sharaftoodana waa u ilaalin lahayd laakiin maadaama arrintan kugu dhacday darteed ayaad arrintan ooga hadasha markaa saas waay macnaha ani iyaga marnaba maba ka hadli lahaynba oo ani iyagana turkooda marka ugu dambeysaan dhahay macasalaama balog ee wada saara oo ani dhib dhan ma jecli oo qofkaas ani hataa waxa iyaga dad u qabta hataa ma jecli inaan ka sheekeeyo sax si fiican so maanta iyaga ay ugu khasbeen bas darteed waxaa dhihi lahaa soomaali weynay wax hubsisma halgeela la siistaa hadda wax kale ahaan sheega ma aqaanaba sida adinka u aaminsantihiina sheekada uma jirto si fiican adigii hana markaa idinka idin taalaa markaa waxaa samayn lahayd hanana waxa waaye ani waa dacweynaya waxa waaye nolosheedii iyo markana maxaa la dhahaa been abuurka ugu samaysay waa mid laskaga haraya ma jirto mid maxkamada ay tegi doontaa insha allah hay walaalkay aada umahadsanta 100% jazakallah ilaahay ayaa kula garab galo asxaabta soomaaliyeedna waxaan ku dhihi lahaa ani ahaan ayaga cafis ha ku weydiistaan adigana iska cafi insha allahu tacaala ilaahay abuurtana cafis ha weydiistaan aan dhihi lahaa marka oo ku salaama walaalkay waa salaamtiin insha allah intaada ka bixin adiga iyo soomaalida waxaan rabay inaad ii sheego adigana hore waa kugu sheegayba gabadhii numberkeeda la siiyey ee aan wacay ee caasho ahayd gabadhii aniga naftirkayga baloga isaartay in arrinkan been yahay oo waxaan wax laisku soo xirxiryahay inaa idin tusaan rabaa anigana runtii waan aaminay 100% dad badan oo aaminsanna wallaahi way jiraan marka gabadhii waa taasaa baloga isaartay inay balog saartayna qofka waxaa lagu garanayaa sawirkaas ayaa ka qaadmaya ma fahanteen sawirkaa ka qaadmaya hadaa aragtiin numberka qorta waa kaasa numberka anaaba idin tusaayaba idinka waca idinka bal gabadha wareysta idinka wax weydiiya waa haddaan numberka arkaysiine mar waa haddaan numberka arkaysiin gabadha bal idinka intaa wacdiin weydiiya bal waxay wiilka saa ugu gashay waxaa bal idinka weydiiya marka halkaasaa oga baxaya maxamedow walaalkayo aada umahadsanta 100% aada umahadsanta 100% gabartaasna waa gabarta markano ee laska dhigaayo fahmno gabadha caashan waa kolley wax way la ogtahay dee wax way ka ogtahay arrinkan sababta qofka la iska dhigaayo waa ayadii moogtahay marka wixii macluumaad dheeraada soomaalida ayaga u direenaa numberkeeda waa kaasaa raadsada idinka haddaba la boodboodo waca oo weydiiya arrinkasay wax u jiraan iyo waxay arrinkan ka damacsaneed marka walaalkii maxamed aadan ku salaama 100% waa mahadsanta jazakallah soo laabo doonaa soomaaliyey horta waxa ugu xanuunka badan oo qof bini aadan lagu sameeya ani waxaan aaminsanahay inuu yahay nabka qofka in la nabo wax ay ka xanuun badan tahay ma jirtaan isleeyahay idinkana saa idinka arkayay 100 mar idin lahaa baashan weji kale yeelan doontaa sababta intaan soo fariisanin ka hor meesha waxaan idin dhahay aniga labada dhagoodba inaan wax kusoo maqlaan rabay ma fahanta intaan halkan soo fariisan ka hor wiilkaan lasoo sheekaystay arrinkan iiga soo sheekeeyey arrinkanna waa ogaa inay wejigan lasoo baxayso 100% waa idin lahaa ama weji kale yeelataa sababtaa gabadha u raadiyey ayaa ahayd
inaan gabadha bal si fiican wax u wareysto u weydiiyo oona wiilka tiisa kaliya qaadan. laakiin qofkii la raadinayay ee lahaa asad baa raadinaya waxbaa raadinaya oo aan fariin u faray maalin ka hor aan fariin u faray. Soomaalida horta wax weyn ka khaldan. qofka maalin ka hor aan fariin u faray ee aan ku dhahay walaal ila hadal waa asfaqdid oo aan isku sheegay oo aan u sheegay waliba inaan rabo inaan caawiyo still ma fahmaysin waxaan ka hadlay oo telefonka qofka la kugu dhiibay oo lagu leeyahay boosaasu jooga haddana magaalo dhex jooga oo qof kale telefonkii u dhiibay oo lagu leeyahay magacii xataa qofkii telefonka markaa hay kuma sheegayno qofkaan nahay muku sheegayno gabadhii telefonka lahaydna maba joogtaba oo haddana cabaar kadib markan ku celintu u adkaysan waayeen blog isaareen. halkaas horta inay been tahay qarkaas qardhaasada numberkan aragteen wacda oo idinka weydiiya. taas waa midda wiilka ilaahay idinku dhaariyo qof dhan oo bini aadan ah oo Sweden joogo oo Soomaaliya qof joogo barfuun ku sixray ama qof waalid ah sixir intuu ugu dhiibo dhahay qofkaas ii sixir waalidka horta yeelay koob yaawa labo barfuunka la isku sixray ama qofkan Sweden gabdhaha jooga sixradu oo Sweden gabdhaha jooga oo bal beenta lidin maleegay waxa iska aaminaysiin oo hinta beenta lidin jilaayo iyo waxana iska qaadanaysiin iyo seef laboodnimadan iyo gabadha la xumeeyay ababa iyo waxan walaalayaal iska daay. gabdho waa la xumeeyay waa u jeednay waa wada aragnay proof cad ah u jeednay in gabar la xumeeyay oo aan daawan indhahan ku wada aragnay. waxaasna waxa sameeyay waa nin dulli ah oo xun oo qashin ah raggan isku mid mooda ah dumarkana waxa ku jiro midan ooynaysa xuna ku jirto midan kasoo duubaysa ku jirto oo waxan lagu leeyahay mashruuceeba ka dhigatayba war ciwaankeeda galab balhana oo soo fiiriya waxaanan kufsi ahayn iyo waxaanan war nin 20 jir la xoogaa arkay 10 sano la habeenay la lahaa bismillaahir rahmaanir rahiim. marka walaalayaalow waxaas aan iska soo gabagabeen insha Allah taala nolosheedii 2016 aan social media aan ku soo biiray weligii arin noocan kama hadlin xataa qof maana isku dhicin qof bini aadan xataa maana isla murmin حتى قف بني آدم إسلامنا مرمن وحنا وكلنا مرضا بعد صوت ضمن إن شاء الله تعالى ذاتك يسوون من شنجريناي أو ميلو بيوسو تاجريناي وحنا وكلا أنيجا مرضا بعد يوسو تاجرين ولا يعلو بليس وعطسي قف كاديل وده وي هذا أريد تدلنا حيوسو درتين ويلك استقانين أوكي ويلك هذا سنقانا ويلك يا نقداني مركا إن شاء الله تعالى ويلك أسن إلهها أبوغ دايو أساد ظلمن Soomaalidiinan ayaana idinkaga baahan maanta inaa wiilka cafis weydiisatiin oo wallahi dhamaantiin inaa cafis weydiisatiin ilaahiina idin abuurtana cafis weydiisatiin sababtoo ah afligaadada idinka yeeraysa arkay ayada idinka yeeraysa arkay gabadha caawida aan lahaydeen wataas hadda ayada been ku soo shubatay qofkii oonay ayada maba ahaba waa naa kale iska dhigdhigaysa lagu leeyahay mar walbana idinku soo celcelinayay inna bacda dhanni ismun malaha qaar waa dambi waan idinku cadaabi karaa naarta wax yar oo fudud ku gali kartiin ma fahanteen. marka insha Allah taala ilaahay hanaga dhigo kuwii khayrka isku waaniya marmarka qaar khayrka si fiican isku sheega wax wanaagsan dadka umada isku wadaaga Allah hanaga dhigo arinkaana halkaas ku biishowad wajigaas kala idinku sheegay ay ku biishowad. marka hadalka mar rabo inaad sii wadado hadalka mar rabo inaad idinku dheeray walaalayaalow aad u maasantihiin waa in salaamaya halkan waxaan fariin ooga dirayaa gabdhaheena Soomaaliyeed ayaan fariin ooga dirayaa fariinta u diraa gabdhaheena Soomaaliyeed waxay tahay walaalayaal nin walba ee aad isku qaadaysiin ee aad isku qaawinaysiin iska daaya. ilaahina wuxuu leeyahay man satara aybu musliman satarahu Allahu aybu fi dunya wal aakhirah. qofkii qof ceebtiisa astura wartaada adduun iyo midaada aakhiro ayaa la asturaya. anaga waxa ceeb nooga soo bixi laayihiin waa ceebaha asturno weeyaan oo wallahi ceebo qof aan ceeb lahayn male ceebahan waxa u soo bixi laayihiin waa ceebaha asturno bis qof walbo ceeboobila waa qof ceebta astura qof walba qof ka ceeb astur badan yahay ayuu ka ceeb asturan yahay. warinta misla fahnay wiilish Soomaaliyeed waxaan leeyahay war ceebahan astura hadii kale wallahi idinku soo biishowanay sidii kii sawirkiisa la soo qarxiyo kale sawirkiina la soo dhigaa idinkana halkaas idinku dhamaad Soomaaliya qofku xumaanta idin la rabo oo magaca idinka dilaayo oo aad ka wada aamusantiin waa u jeedina iska qabto Soomaaliyeed qofka magaca idinka dilaayo iska qabto Soomaaliyeed. hadalka inaa ku sii dheeraado idinku dheereeyo ma rabo waa idin salaama walaalayaasha qaaliga ah gabdhaheena ilaahay ha sharfo ilaahay ceebtooda ha u asturo ilaahay ha ilaaliyo intaas uga baxaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.